لا بأس طهور إن شاء الله. الله كعافية ولا عاف مدتك الله كسيو. وانا لاني gabadha wili waa jirtay telefonkina waa laga qaaday xariga lagula kacay walaasheen Sumeeye Qurux oo ku xiran muddo 2 maalin ah xabsiga Hargeysa. Sumeeye Qurux oo 2 maalin meel ay cirib iyo jaan dhigtay la weysan yahay nolol iyo geeri cid ku haysa malahan waxana laga baadiyoobayaa gudaha xabsiyada magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland. Haddaba daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa xog sir oo ku aadan gabadhani halka la geeyay iyo sidoo kale xaaladeedii ugu dambeeyay maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay ka walwalsan yihiin nolosheeda iyo badqabka caafimaadkeeda. Haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin xogaha iyo macluumaadkan way kamid tahay warbixin ay bixiday gabar la dhalatay Sumeeye Qurux iyo sidoo kale dad caan ka ah baraha bulshada kuwaas oo nala wadaagay xogtii ugu dambeeyay gabadhan iyo waxyaabihii laga helay markii ugu dambeysay la arkay. Haddaba daawadayaal inta aan warbixintaasi u gudagelin fadlan marka hore muuqaalka la garay si uu baahuna gaar bulshooyinka Soomaaliyeed sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya ganbeelkana u furanaya. haddaba daawadayaal magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland inta badan horay ayaa loogu ogaa in dadka ka soo horjeeda maamulka Somaliland ama ay ku tuhmayaan in wax uun ay ka sheegeen in laga soo musaafiriyo halkaasi waa haddii ay u dhasheen koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale bartamaha Soomaaliya. hase yeeshee daawadayaal arrintan ayaa markii ugu horeysay waxa ay noqotay mid ku koobnaata gabdhaha isticmaala aaladda TikTok sida wadogsonahay maalmo ka hor Mrs Wall oo ah gabar ka caan ah aaladda TikTok ayaa ka degtay magaalada Hargeysa iyadoona isla markiiba aeroboortka lagu qabtay iskuna hareereeyeen rag dhar cad sirdoon ah oo u shaqeeya maamulka Somaliland sida darteedna dib loogu soo celiyay magaalada Hargeysa Mrs Wall. haddaba daawadayaal arrintii way sii socotay maalinba maalinta ka dambeeyay ay socotaba waxa markii ugu horeysay soo yeertay qayladaan runtii naxdin nagu abuurtay kadib markii gabadhan lagu magacaabo Sumeeye Qurux oo la socotay Mrs Wall hase yeeshee iyadu gudaha u gashay Somaliland la weysan yahay. لا بأس طهور إن شاء الله. الله كعافية ولا عاف مدتك الله كسيو. muuqaalkeedii lama hayo qayladaan ay dirayaan dadkii waalidka ahaa iyo sidoo kale dhalinyarada baraha bulshada caanka ka ah bal marka hore inta aanan kula wadaagin xogo iyo macluumaad qaas oo aynu ka hayno aynu isla dhageysano gabadhan la dhalatay Sumeeye Qurux oo ka hadlaydo xaaladeedii ugu dambeysay. saddex wax xiran tahay mafahan dawladna kama warqabto waana la'aanay gabadha wili waa jirtay telefonkina waa laga qaaday odayan qasiiska meesha ku saaran beeniyo ku sheegantini wax aadan muumin dadka inay soo hadleen niyo soo fadhiiso soo hadal gabadha waxa loo aaneynaa gabar habadkiisa soo madaxiisa. haddaba runtii waa arrin naxdin iyo amakaag leh sidoo kale waxaa dhacdadan argagax leh ka hadlay Bilaal Bulshaawi oo ah wiil dhalinyaro oo ka caan ah aaladda TikTok runtiina si weyn u garanayo xabsiyada Somaliland maadaama uu dhowr bil ku jiray xabsi ku yaala magaalada Hargeysa. haddaba Bilaal waxa uu ka hadlayaa xogtii qaaska ahayd oo helay iyo waxyaabaha laga yaabo ama suurtagalka ah inay gabadhani ku dhacaan bal haddaba aynu isla dhageysano Bilaal iyo xogta uu hayo. aan ku haynaa in ay dhalinyaro fara badan ay ka baxsadeen oo reer Muqdisho ah ka baxsadeen ay isaga tageen magaaladii isla maantaba kuwana ay rajeynayaan in ay isaga baxaan insha Allah. marka waxaan idin rabnaa reer Somaliland hadaatiin aqli noqon mayso gabar la jir dilay la dhibaateeyay muddo 24 saacadood ka badanna lagu hayo xabsi in weli ay xabsi ay ku sii jirto xabsigaasna aan wax war ah aan laga sheegin oo aan qof walba leeyahay war ha sheegina ha hadlina ha sameynina annagu reer Hargeysa waxba inooma sheegin meelo kale wax ka soo ogaanay dad kale annaga wax noo sheegeen qof social media ku jirto oo war inoo sheegtay ama aan la xiriirnay habeeraatay ma jirto gabigood wada cabsi ku jirto nin walba wuxuu isleeyahay yaa lagu maleen ina adiga wax sheegtay yaa lagu maleen ina adiga wax gudbisay qof walba marka baqdintaas ku jirto marka taasa waxay dhalisay in aan xogtii oo dhameystirneed oo ilaa gudaha xabsiga ka jirta aan ogaano laakiin inta aan anagu aan ogna waa intaas wixii kale soo kordho oo muhiim ah waan idin la wadaagi doonaa insha Allah. maxaad ka ogtahay xariga lagula kacay walaasheen Sumeeye Qurux oo ku xiran muddo 2 maalin ah xabsiga Hargeysa. Sumeeye Qurux ayaa muddo 2 maalin ah ku xiran Hargeysa
iyadoo la filayay in maanta la soo daayo weli war iyo wacaa lagama haayo iyo sababaha loo xiray insha Allah wixii faahfaahin halkan ayaa idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah haddii Alla idmo ha loo soo duceeyo ilaahayna ha ka soo fujiyo reer Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa si walbo ee u soo fududeyn karaan xarigaas ee lagu la kacay walaashan Soomaaliya qurux in la soo daayo roondooyin lagama qaban jirin oo ciidan maysan aadi jirin sababo iyo waxa jirto iyo qaab ay u aadeen iyo shirqool ayaa meeshaas ku jiro marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno live-ka share gareeya hala soo bato live-ka hala share gareeyo soo bata shan ku soo gaar insha Allah shan ku soo xabsigaas oo ku yaalo dhanka waxa gacanta ku wada lacagta shilimaadka oo Hargeysa ma jirto intaan hadda $100 waaye $3 bar waa ma $3 waa ku kashilin لا بأس طهور إن شاء الله الله كعافية ولا عافي مدتك الله كسيو xariga lagu la kacay walaashan Soomaaliya qurux oo ku xiran muddo 2 maalin ah xabsiga Hargeysa haddaba daawadayaal waxaan runtii rajeynayaa inaad warbixintan daawatay dhammaystiratay runtii aad ayaan uga naxay ugana argagaxay waxa ku dhacay walaasheen runtii waa wax laga qurux badan yahay in gabar Soomaaliyeed ama gabar nasabiyada Soomaaliyeed sheegato in loo geysto Soomaaliya quruxna kuma sii jirto waxay ahayd qof deganaan u dhaatay oo runtii arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha isdiidan aan marnaba dhaxgelin aad baan uga xunnahay waxa ku dhacay 100% haddaba daawadayaal warbixintii aynu ka diyaarinay halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno سيدا ينبات قليو محسندين لا بأس طهور إن شاء الله الله كعافية ولا عافي مدتك الله كسيو xariga lagu la kacay walaashan Soomaaliya qurux oo ku xiran muddo 2 maalin ah xabsiga Hargeysa لا بأس طهور إن شاء الله الله كعافية ولا عافي مدتك الله كسيو xariga lagu la kacay walaashan Soomaaliya qurux oo ku xiran muddo 2 maalin ah xabsiga Hargeysa لا بأس طهور إن شاء الله الله كعافية ولا عافي مدتك الله كسيو xariga lagu la kacay walaashan Soomaaliya qurux oo ku xiran muddo 2 maalin ah xabsiga Hargeysa لا بأس طهور إن شاء الله الله كعافية ولا عافي مدتك الله كسيو xariga lagu la kacay walaashan Soomaaliya qurux oo ku xiran muddo 2 maalin ah xabsiga Hargeysa